qarax bambaano oo la sheegay inuu geystay khasaare dhaawac ayaa waxa uu ka dhacay xaafadda Oktoobar ee magaalada Burco sida warbixintan oo inagu soo diray wariyaheena Axmed Hanad oo inaga soo warrama magaalada Burco qarax bambaano oo sababay dhaawaca hal wiil oo dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Sharmarka Faarax Aabi ayaa ka dhacay xaafadda Oktoobar ee magaalada Burco waxaana isla markiiba loola cararay isbitaalka guud ee magaalada Burco aanu ku booqanay iyadoo ay la tacaalayaan dhaawaca wiilkaasi dhaqaatiirta iyo hawlwadeenada isbitaalkaasi goobta uu qaraxani ka dhacay oo ahayd xabaalaha xaafadda Oktoobar ayaa waxaa inta badan ku soo noqnoqda qaraxyo miino oo isdaba joog ah sida ay noo sheegtay gudoomiyaha xaafadda Qadan Cali Dheere sidoo kale waxa ay eedeyn kulul dusha uga tuurtay hay'adda miino baadhka Somaliland oo ay sheegtay inay in badan howlgallo miino baadh ka fuliyeen goobtani shil baa ka dhacay waxaa ka qaraxday shalayto miino ayaa ka qaraxday kuwa gacanta ah bambooyinka gacanta lagu tuuro goobta ay ka qaraxdayna waxay ahayd xabaalaha Oktoobar waxaa ku dhaawacmay inaan da'diisu tahay 14 jir sida la sheegay oo ahaa qoys tan yar oo masaakiina inankii markuu dhaawacmay waxaan weynay gaarigii noo qaadi lahaa ee gurmadka degdega noo sameyn lahaa anagoo xiriirkii u horeeyay la sameynay xarunta caafimaadka ee Burco ambalaaskii garaacnay telefoonnadoodii laga qaban waayay waxaa hore u jiray dhibaatooyin tan la mid ah ama ka culus oo ku dhintay dad badani oo miinooyinka shan qof oo wada socday goobkooda dishay halkii ay ka shaqeynayeen ay gacanta ku hayeen ee ay indhaha iyo dhagaha u xidheen ay ka sawiranayeen weeye goobahan ay ku leynaysa dadka waxaan oran karnaa hay'adaha miino baadhku sidii la rabay ama loogu soo igmaday hawsha dalka umay boganin dhanka kale waxaanu isbitaalka guud ee magaalada Burco kula kulanay aabaha dhalay wiilkani Aabe Faarax Aabi oo nooga warbixiyay sida ay wax u dhaceen si kastaba ha ahaatee waxaa muddooyinkii u dambeeyay gobolka Togdheer iyo deegaanada ku xeeran ku soo noqnoqonayay qaraxyo miino oo sababay dhaawacyo halis ah iyo inay dhalinyaro badini waayaan xubno muhiim ah oo ka mid ah jirkooda dhanka xukuumadda hay'adda miino baadhka iyo dawladda hoose Burco ayaan wax muuqda ka qaban badbaadinta da'yarta ee miinooyinka ku aasan gobolada kala duwan ee Somaliland waxaana miinooyinkani ka mid yihiin raadadkii ay sababeen dagaaladii 1988 ilaa 1990 ka socday gobolada waaweyn ee Somaliland oo goobaha qaar ay ka muuqdaan raadadkii ay dagaaladaasi sababeen Axmed Hanad Guray Baqaye Samsa TV Burco.